qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka masraxa musharaxa waxa inoogu martiya maxamuud warsame jaamac afayeenkii hore ee madaxweynaha Soomaaliland imikana ka sharaxan golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaaga ugu horeyn waxaan weydiinayaa in uu si guud ugu dul maro taariikhdiisa nololeed waxbarasho iyo siyaasadeed bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wadin ka mahad celinaya inaad ugu soo marti qaadaan iyo waqtigiina qaaliga barnaamijka masraxa musharaxa ee telefishinka Somaliland National TV ama TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland howlwadeennada iyo bahda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo daadiyaasha barnaamijkanba aad baan idin salaamaya waan idin soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ka soo qayb galo barnaamijkan bilowga masraxa musharaxiinta oo ay musharaxiin fara badan dalka ka tartamayaan inaan nasiib u helo inaan ka mid noqdo oo ku faraxsanahay saad sheegtay magacaygu waa maxamuud warsame jaamac haatan waxaan ay musharax u sharaxan doorashada aqalka golaha wakiilada ee dhawaan la filayo inay ka qabsanto dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan soo maray xilal kala duwan oo qaran waxaan ka soo bilaabay asaaskii shaqooyinka bare ama macallin dugsi hoose maamulada dugsi waan soo noqday musharax u tartamay doorashadii golaha deegaanka degmada Ceergaabo sanadii 2012 baan noqday xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaabo gudoomiyihii gudida dhaqaalaha ee golaha deegaanka degmada Ceergaabo noqday sanadkii 2016 bishii afraad wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga noqday sanadkii isla 2016 bishii 12aadna wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga noqday 2018 dabayaaqadii bishii koowaadna afayeenkii madaxweynaha baan noqday waan imika u baneeyay si aan u tartamo doorashada golaha wakiilada waxaan ku barbaaray oo ku dhashay waan waxbarashadeedii hoose dhexe iyo sareba ku soo qaatay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waan intii waqtiga ugu badan aan ku noolaa waxaan Hargeysa soo wareegay sanadii 2015 intii ka dambeysayna waxaan ka shaqeynay magaalada Hargeysa waan xilka kala duwanay qarankan ka hayay maanta waxaan u taaganahay inaan u tartamo doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland anigoo musharax u taagan golaha wakiilada gobolka Sanaag xisbiga xaakimka talada dalka ay kulmiye maxamuud bal waxaad ummadda u fasirtaa mabaadiida guud golahan wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland iyo shaqada uu qabto sidaynu la wada socono dalka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu leeyahay saddex dhardhaar oo waaweyn oo isbarkan oo isdheeli tira waxa weeyaan golaha sharci dejinta garsoorka iyo golaha fulinta xukuumadda laba kamida shacabka ayaa codkooda kalsoonida ku soo doorta waa golaha fulinta waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo dhisa xukuumadii muddaxileedka la doortay dalka hogaamin lahayd golaha wakiilada oo ka kooban 28 mudane iyaguna waxa weeyaan gole ay shacabku soo doortaan waxa doorashadooda la bilaabay sidoo dastuurku qeexayo sanadkii 2005 waxay golahani la soo bilaabmeen dalka Jamhuuriyadda Somaliland xilligii la asaasay Somaliland markii lagu dhawaaqay 1990 dhardhaaradii qaranka loo taagay ee lagu taabageliyay dawladnimada ayaa waxa kamid ah labada gole ee golaha dhaqanka iyo waayeelka ee guurtida oo aan wili iyaga doorashadoodii qabsoomin iyo golaha wakiilada oo markaa lagu soo gelayay goboleysi iyo beelaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxa laga guuray nidaamkii beelaha ee golaha wakiilada sanadku markuu 2005 markii la sameeyay nidaamka xisaabta badan ee aynu u guuray dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka 2005 waxa tartamay saddexda xisbi qaran ee xisbigii udub oo talada dalka hayay kulmiyo mucaarad ahaa iyo xisbiga wicido isaguna mucaarad ahaa waxay ku soo tartameen sida uu dastuurku qeexayo 28 kursi ee golaha wakiilada oo u qaybsan 6 gobol ee waaweynaa ee dalka 28 ka mudane oo 2005 la doortay nasiib darro may dhicin in doorasho dambe ay dalka ka qabsoonto muddaxileedkiisuna wuxuu ahaa muddo 5 sano waxay ka yeekeen 2010 maanta bisha shanaad 31keeda 2020 ayaa la rajeynayaa inay doorashadaas ay dalka qabsoonto iyadoo ay noqonayso doorashadii labaad ee loo dareerayo aqalka golaha wakiilada golaha wakiiladu waxa weeyaan golaha sharci dejinta qaranka waa golaha ansixiya diyaariya isla markaana soo gudbiya xeerarka iyo shuruucda uu dalkan ku kala socdo Soomaalidu waxa ku maahmaada awrka iyo ninka hoggaanka u dhaxeeya haddaan dalku aanu sharci lahayn dabar ma yeelanayo golahani shaqadiisa iyo mandate-kiisa waxa si cad u qeexaya dastuurka dalka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuuna siinayaa awoodo qeexan oo la yaqaano oo dastuurka ku qaran awoodahaas kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah waa
wuxuu dejiyaa shuruucda dalka, wuxuu wax ka bedelaya kaabis ku sameeyaa xeerarkii hore ee golihii hore sameeyey ama xeerarkii soo jiray ee dalku lahaa, waxaana uu dheegtaa oo xeerarka dalka lagu dabaqayaa ay ka yimaadaan dastuurka dalka jamhuuriyadda somalilan, walow xeerar badani ay qeexayaan dastuurka markuu ka hadlayo xeer baa nidaamin doona. xeerarka uu leeyahay dastuurka xeer baa nidaamin doona ayaa waxay salka ku hayaan in uu golaha wakiiladu noqdo golihii xeerarkan diyaarinayey, curinayey. sidoo kale golahani waxa uu igman yahay in hay-adaha kala duwan ee fulinta ee dowladdu markay soo sameeyaan xeerarka iyo shuruucda ay ku shaqaynayaan ama hay-adaha dowladda ee madaxweynuhu aasaasayo in loo soo gudbiyo golaha wakiilada. golahaasoo awood buuxda u leh inuu wax ka bedel ku sameeyo, inuu kaabis ku sameeyo, inuu laalo iyo inuu ansixiyo hirgeliyo. golaha wakiiladu waxa weeyaan rukun ka mid a rukumada waaweyn ee qaranka. waxaa kale golahani awoodiisa ka mid a mas-uuliyiinta dastuuriga ee qaranka ee madaxweynuhu magacaabo ayay ansixiyaan oo ogolaanshahooda meel mariyaan. golaha wasiirada ka mid a hay-adaha madax banaan qaar ka mid a komishinka doorashooyinka qaranku ka mid yahay, baanka dhexe ka mid yahay, hay-adda shaqaalaha dowladdu ka mid tahay ayaa ka mid a iyaguna hay-adaha madax banaan ee uu golahu ansixiyo ee uu siiyo kalsoonida buuxda ay ku shaqaynayaan. haddii aanay golahu wakiiladu mas-uuliyiinta qaranka ee madaxweynuhu magacaabay aanay ogolaanin oo aanay ansixinina ma noqonayaan mas-uuliyiin shaqadii qaranka loo igmaday gudanaya. runtii golaha wakiilada waajibaad weyn oo dastuuri ah oo uu dastuurku siiyey ayay qaranka u hayaan, waana golaha xeerarka iyo shuruucda aynu ku dhaqmayno ilaalintooda iyo ansixintooda iyo ogolaanshahoodaba ka mas-uulka ah. waata maxamuud, waxaad ahayd afhayeenkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan, xil aada u sarreeyaad haysatay. maxaa kugu kalifay inaad iska casisho oo aada soo doonato hawsha intan leeg ee golaha wakiilada ee kharash kaa baxayo ee olole aada gelayso? galdaloolada kuu muuqatay kugu kaliftay maxay tahay? waa run, madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi waan mahad aada u ballaaran uga celinayo inuu ii gartay inaan noqdo afhayeenkii madaxweynaha muddo 3 sano iyo 1 bilo aan xilkaa aan hayay. kadib waxaan go-aansaday inaan noqdo musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda somalilan. way isweydiinayaan dad badaniyo dadka qaar iminka golaha wakiilada u ordaya waxaa laga yaabaa inay shaqo ka dhiganayaan, waxaa laga yaabaa inay masraxa iyo saaxadda siyaasadda kusoo gelayaan, laakiin anigu saaxadda siyaasadana ku jiray hayeena shaqo qaran oo aan mandatekeedii haysto madaxweyne ii gartay ayaan go-aansaday inaan u tartamo. waxay igu kalifay, soomaalidu waxay ku mahmaadaa geeluna waa gilgilimaystaa ragguna waa guurguura. siyaasaddu maaha macnaheedu haddii aada leedahay hiraal iyo hanfog ama aada doonayso inaad masraxa siyaasadda iyo saaxadda siyaasadda kusii jirto inaad meel iska fadhido oo aada meel uun ka shaqayso. waxay u muuqanaysaa inaad qof shaqo doonayo inaad tahay. waxay iga go-aanaan doonaya inaan qarankayga usii shaqeeyo, waxay iga go-aanaan doonaya inaan gobolkayga sanaag maanta meeshuu maraayo iyadoo aan xildhibaan haddaan noqdo qaranka oo dhan xildhibaano ahay, balse inaan fariimaha reer sanaag golahan keeno, mabaadidooda iyo arrimahooda aan hirgeliyo u baadi doono oo aan u madax banaanaado inaan noqdo xildhibaan dadkii soo doortay u adeegaya qarankiisana u shaqaynaya. ayaan go-aansaday inaan golaha wakiilada u tartamo. waxaun ay ku timi markaan sahamiyey siyaasadayda jihada ay u socoto, markaan ka baaraandigay aniga iyo siyaasaddu iyo halka aanu isla gaari doono intaan kusii jiro, markaan xaqiiqsaday han weyn oo halkan aan doonayo ka weyn oo aan ka leeyahay dalka, balse aan u baahnay inaan weel weyn usii tosho, kaba adagna aan usii gashado, aada usii fahmo oo aan aada xoogaal ugu sii noqdo hadba dowladdu qaybaha ay ka kooban tahay iyo qaranka somalilan dardaaradiisa, bal inaan ogaado oo gole degaan iyo gole fulineed iyo gole wakiileed intaba bal inaan mid walba xaqiijiyo hawsha iyo shaqada ka socota anuu u meel dayanaya damac kan ka weyn oo aan leeyahay waan la sugayo waqtigeeda iyo markeeda. taas ay u kaliftay. golaha wakiiladu sidiisaba waa golihii sharci dejinta. hawshan aad soo doonatayna waa hawshii sharci dejinta qaranka. qofka mas-uuliyadda xilkaa soo doontana waxaa waajib ku ah inuu wax ka yaqaano qodobada dastuuriga ah ee la xidhiidha hawshaasi. mataqaanaa qodob ka midoo dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo tilmaamaya shuruudaha looga baahan yahay qofka murashaxa ah ee noqonaya xubin golo wakiil ah iyo farqadiisa? dastuurka jamhuuriyadda somalilan baa si cad u qeexaya shuruudaha laga doonayo qofka doonaya inuu noqdo musharax. kow
waa inuu muwaadin dalka jamhuuriyadda somaliland u dhashay yahay, waa inuu muslim yahay kuna dhaqmaa diinta islaamka, waa in uu yahay aqoontiisa ama waxbarashadiisu dugsi sare ay tahay ama wax u dhigma, waa in aanu dembi ku dhicin 5 sanadood ee ugu dambeysay, waa inuu hadduu shaqo dowladeed uu hayay uu shaqadaa baneeyaa 90 maalmood ka hor, isla markaana waa inuu keenaa caddeyntii lagaga aqbalay. aad baan u garanayaa, waayo haddaanan garanayn inuu ogsoonayn maan soo doonteen. xilku sidiisaba waa ammaano. waxaad u soo diyaar garowday inaad noqoto xubin ka mid ah golaha sharci dejinta oo ah halkii laga saxayay shuruudihii dalka. waa mas-uuliyad culus runtii. sidaa darteed ma jirtaa qabyo kuu muuqata oo aad is leedahay waxaad ka qabatid? kolley adduunyada aynu nool nahay iyadoo qabyaha baynu ka tegaynaa dhammaanteed, geedi baynu ku wada nahay, wax qabyo tirmayaa ma jiraan, balse malahayga gaaban waxaa ii muuqda in dalkani maanta halka uu ka horumari karo ee uu ka socon karaa haddii shuruucdiisa sida ay yihiin loo dabaqo, isla markaana xeerarka iyo shuruucda qarankan loogu talagalay golaha wakiiladu ay soo ansixiyaan, golaha fulintuna ay fuliyaan, uu qarankani horumar muuqda u gaari doono, halkii aynu ku wadnay ugu talagalayna uu tegi doono. waxaa ka mid ah in dhowr iyo 10 sano oo golahan wakiiladu ay fadhiyeen anigoon dhaliilaynin in dad badan oo reer somaliland isweydiinayaan inaan shuruuc fara badan oo loo baahnaa aanay soo bixinin ama waqtigoodii kusoo beegminin. anuu ka duulaya taa, anuu maanka ku haya muhiimadda ay shuruucdu u leedahay dalkeena. waxaa ii muuqata kow inaan haddaan ku guuleysto xildhibaanada golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda somaliland aan noqdo mudane u ololeeya dejinta iyo dardargelinta xeerarka kala duwan ee qabyadaha ay hore u yaalay, ogaanshaha iyo xaqiijinta kuwa soo baxay aan wadadoodii loo marin ama sidoodii aan loo dabaqinin, iyo ku dadaalidda mudaxileedka golahaasi leeyahay inuu qarankan uga tago wax lagasi u noqda oo wixii loo doortay ee loo igmaday bulshada wax u cuntama inay meesha ka soo baxaan. maxaad is leedahay waad kaga duwan tahay ragga kula tartamaya iyo kuwii hore usii joogay adigoo qorshahaaga ku darsanaya shuruudihii lagugu soo xulay inay ku jiraan karti, aqoon iyo daacadnimo? runtii waxaan is leeyahay anigoon isfaaninaynin waxaan joogay dalka jamhuuriyadda somaliland 30 sano u dambeeyay ee dalkani uu jiray, waxaan xogogaal u ahay oo aan si dhow ula socday howlaha qarankan ka soconayay siyaasiyan, dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba. waxaan rag badan oo qaranka ka maqnaa maalmihii uu adkaa ee dhibaatooyinku haysteen, iyo rag badan oo qaranka ka maqnaa maalmihii uu dhitinayay, iyo rag badan oo qaranka soo hareer istaagin maalmihii u badnaa in loo hiiliya inay maanta soo doontaan kuraasidan oo ay yidhaahdaan musharaxiin baanu xildhibaanaan doonaynaa, inaan uga xoogaalsanahayo inta ay iyagu baranayaan ay ku mashquulayaan ogaanshaha iyo xog helidda aan anigu ahay nin xogtiisii hayo inuu halkaa un kasii dhaqaajiyo u diyaarsanoo doonaya. 2 waxaan saaxadda siyaasadda kusoo jiray 8 sano u dambeeyey, ola degaan baan kasoo bilaabay, jaranjarada kumaan soo boodin, dusha kagamaan soo dhicin. golaha deegaanka oo ah golo yar oo golahan oo kale shaqooyinku qabto shaqa inuu u soo dhow degmooyinka u qabta ayaan soo maray. runtii 3 sanaan ku jiro khibrad fara badan iyo tababar badan baan kasoo helay. golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda somaliland ayaan fadhiyay 2 sano iyo 2 bilood oo isagana aan waxa ka socda iyo qaranka jihadiisa iyo amuurihiisa aan kooga. 3 afayeenkii madaxweynahana 3 sano, sidoo kale golaha wasiirada 3 sano baan joogayo, iyana 2 dowladood oo kala duwan oo dowladda Axmed Siilaan iyo dowladda Muuse Biixi aan la shaqeeyay, mid waliba siyaasadii ku shaqeynaysay iyo marxaladda dalku marayo baan xogaalo ii muuqdan garanaya. waxaan kaga duwanahay markaa warmooge xaajo waa dilaabaa Soomaalidu ku maamay jirtay, rag badan oo xogmooga oo aan wax badan oo dalka ka jira aan ogeyn ayaan anigu waqtigiga lumaynin ogaanteede waqtigaygu ku lumaya inaan shaqada qaranka hore u sii wado aan sii shaqeeyo. waxyaabo kale oo badan aan kaga duwanahay oo de khibradda aan ka dhaxlay oo aan dalbarashada ka dhaxlay oo aan gobol ilaa gobol Somaliland maanta aan wada garanayo wada gaaray aan qaranka u shaqeynaya. gobol walbana aan ogahay Soomaalidu waxa ku mahmaada geed walba in gubtaa hoostaala. gobol walba iyo cid walba maanta waxa ka jira baan aad u ogahay, anuu taa ka duulaya kuma mashquuli doono, kuma habsaami doono inaan ogaantooda iyo xaqiijintooda iyo barashadooda doone inaan hore un qaranka ugu adeegan doonaya. marka khibrad baan kaga duwanahay, dal joogistaan dalka joogaan kaga duwanahay, siyaasadda iyo masraxan ku jiraan kaga duwanahay. waa tahay had iyo jeer murashaxiinteena
baarlamaanka u soo baxa waxaad moodaa inay xambaarsan yihiin afkaartii xisbigii ay ka socdeen haddiiba lagu doorto oo aad ka mid noqoto golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ma waxaad noqon doontaa xildhibaan ku adeego uun aragtidiisii xisbinimo mise mid dantii qaranku hadba halkay sax ku tahay raaca oo aan fikirkiisa cidla yeelan baad noqonaysaa runtii nidaamka xisbi asxaabta badan iyo doorashooyinkii dimuqraadiyadda aynu samaysanay ayaa wuxuu inoo jideynayaa in musharaxiintu ay kasoo baxaan xisbiyada qaranka xisbi walibana si siman ay saddexda xisbi gobolada ugu tartamaan musharaxiin siman oo isleeg ciddii kalsoonida shacabka hesha ee loo codeeyo ee soo baxda markay xildhibaanka noqoto iyadoo xisbiga ay kasoo baxdayna dhabarka ku haysa kow wuxuu noqonayaa xasaanadii ummaddu xambaarsanyay labana wuxuu noqonayaa xildhibaan qaran saddexna waxa weeyaan mudane u igman inuu qarankiisa u adeego oo shuruucda qaranka uga adeego sidaas ay tahay waxaa iga go-an aniga inaan masiirka dalkayga iyo maslaxadda ummadaydu waxay ku jirto mudane adeego u raaca inaan noqdo haddana haddii ay yimaadaan aragtiyo iyo siyaasiyo xisbiyada ka turjumaya oo golaha yimaadaan mudane waliba xisbigu kasoo baxo nin waliba xisbiguu kasoo baxay dee uu ahaanaya uu xasuusnaanaya mabdi-iyana ma wanaagsanaa in la guurguuro oo mabaadida la bedele waxaa munaasiba in mudane waliba uu mabdaa guud ee qaranka uu ilaaliyo ka xisbigiisana uu dee xasuusnaado ogaado marka anigu waxaan noqon doonaa mudane mabaadida guud ee qaranka u adeega hadday noqoto in xisbi ay madasha yimaadaanna nin waliba xisbi buu noqonaya waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa oo ah laba su-aalood oo isbarkan waa marka koowaade maxaad leedahay waxaad igu xasuusan doontaan kaasaan ahaan doonaa haddii aan soo baxo anigoo ah maxamuud warsamo jaamaca bulshay waxaad iga gunudaan inaan kaa ahaan doono sidaan u shaqayn doono fariintaas baan rabaa inaad ummadda u biyaamiso ta labaad maxaad leedahay igu doorta oo maanta ololahaaga saldhig u ah kow shacabka jamhuuriyadda somalilan inta magacayga iyo muuqayga taqaana guud ahaan shacabka jamhuuriyadda khaasatan shacabka gobolka sanaag iyo degmada ceergaabo waxaan leeyahay waxaan idiin ballan qaadayaa inaan noqon doono haddii ay doorataan oo kalsoonida codkooda aan helo inaan noqdo mudane u adeega ummadiisa ugu adeega cadaalad sinaan iyo midnimadooda iyo iskaashigooda inaan noqdo mudane aan soo kala dhaweysan iyaga isu soo dhaweeya inaan noqdo mudane muddo xileedka la doortay aan meeshaa ka shaqaysan iyaga ugu shaqeeya haddii aan doonayo inaan ka shaqaysto ambaan shaqo rabana iminkaba shaqo waan joogay waxaan uga imi aan doorbiday waxa weeyaan inaan dadkayga ugu adeego waktigayga maskaxdayda iyo muruqaygaba shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay waxay iga qoraysaan inaan idiin noqdo nin qaranka horumarkiisa iyo qiimaha bulshadiisa ilaaliya qodob waa kaa qodobka labaad maxaa laygu dooranaya kow waxaan leeyahay waxaad igu doorataan dhalinyaranimo nin dhalinyaraa oo saaxadda siyaasadda muddo badan kusoo jiray oo maskaxdiisu ay weli dihin tahay oo doonaya in dadkiisa u adeego oo ka turjumaya in mas-uuliyadda intaa leeg ay dhalinyaradu qaadi doonto waayeelka iyo haweenkana waxaan leeyahay kale ee waaweyn waxaad igu doorataan inaan ahaan doono mid idiin adeega oo idinka warhaya oo si dhow xaaladii noola socda saddex maadaama aan muddo badan kusoo jiray saaxadda siyaasadda maanta aanan ku cusbayn socod barad ku ahayn haddeer aanan bilaabaynin waxaan ka nasiib wanaagsanahay waan shacabkaygana ka codsanayaa waxbaa ii bilaabane waxa ii bilaaban idinkuna iisii kordhiyo oo waxaa la yidhi inanbaa aabihii intuu yimi wuxuu ku yidhi hooyo aabe hooyo waxaad ku taada idinka hadhuubka u buuxi caanaha haafa ugu shubi jirtay waxaan leeyahay shacabkaygay dooranaya aan doonaya inay doortaan war hadhuubka ii buuxiyeyo halkan aan doonayona waan meel kasii saraysana waan hiigsanaya damac ka weyn oo kalena waan leeyahay halkanna inaan waajibkiina iyo waxaa iga mudantihiin idinku mariyo waan cadaalad iyo horumar idinku adeego idinku shaqeeyaan doonayaa igu doortataa ninbaa waxaa la yidhi gabadh laga soo doonay dabeetana nin baa u yimi wuxuu ku yidhi maxaad gabadhayda adiga siinaysaa 100 halaad buu ku yidhi waan ku siinaya kuma siinayo yiri mid labaad baa u yimi maxaad siinay buu ku yidhi 200 halaad baan ku siinayaa buu yidhi kuma siinayo buu yidhi
mid saddexaad baa u yimi maxaad siinay xididnimo daacada baan ku hayaa isagu ku darowsi waxaan leeyahay shacabka gobolka Sanaag wax qabad daacada iyo mas'uuliyad daacada iyo shaqo daacadnimo ay ku doortaa taasaan idin hayaa si siman baan idinku adeegi doonaa waa mahadsantihiin وتاين تسوح نقول برنامج مسرح مشرحة وبرنامج كانوا مرتين وجوها محمود ورسمة جامع وكشرحان حسب كلمية قبل كسناج اسمه كان فيانكي هوري مدحوينها انتهى البرنامج كان الله مدا كل مدونه وأنا وحسن إسماعيل محمد حسن شاها وإذن له سدايو نبتقليه عبد الناصر ayay dulcdeedu tahay